السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي سoo dhawaada waa mar kale iyo muuqaal kale maanta muuqaalkeena waxaan ku sharaxi doonaa sida aad u iibsan lahayd coinanka ay ka midka yihiin sida tusaale Bitcoin hadaad u baahan tahay Ethereum Solana dhammaan coinanka ama tokenada ku jira suuqa cryptocurrency si aad u iibsan lahayd hadaad u baahan tahay waxaan kugu tusi doonaa muuqaalkan ayaan si fiican oo sharaxan kugu tusi doonaa marka hore hawl badan ay qaadan jirtay ama sida caadiga way adkayd in la soo wareejiyo lacagta laakiin hadda runtii waxa aad u fududeeyay application kala yiraahdo TranApp oo ay leeyihiin community Soomaali ah marka waxaan ku tusi doonaa sida ugu fudud ee aad ku iibsan karto coinka aad u baahan tahay ama suuqa cryptocurrency aad uga trade gareyn karto ugu horeyn horta waxaad u baahan tahay lacagtaada inaad ku shubato marka wadadii aad kaga shuban lahayd ama meesha ugu fududeyd ee aad kaga shuban lahayd ayaan ku tusayaa marka hore waxa muhiim ah horta inay ku firfaygareysan yihiin ama ay ku diyaarsan yihiin laba mid ama saddex mid inay ku diyaarsan yahay exchange-rada ama sariflayaasha tusaale kan oo kaleeto kan hadda uu ku qoran yahay Bybit aniga waa firfaygareysan yahay waa sarifle caalamiya kan oo kale waa firfaygareysan yahay waa gidayo haddii aad haysato aan kala yiraahdo Binance waa okay isna aad buu u fiican yahay waa sariflayaasha sarifa lacagta Bitcoin-ka ama lacagta cryptocurrency laga dhex iibsado mostly ama laga trade gareeyo waa suuqyadaasi meesha ay ku jiraan waa meeshani sarifleyaashan ay ku jiraan marka waxaad u baahan tahay labada mid kamid ah ama verified ku yahay khasama in labadaba verified ku ahaadaan ama saddex verified ku ahaadaan haddaad u baahan tahay iska verify gareysan kartaa verified wax kale maaha macnaha inuu mid kamid ihi uu ku yahay haddaan ku tuso tusaale Bybit baan hadda lacagta ku diri doonaa marka Bybit baan ku tusay verify wax kale maaha waa in ID-gaaga ama xogtaadii aad gelisay oo lagu soo aqbalay si lacagta aad si xor ah ugu dhex trade gareyn karto meeshaas saraan tagi doonaa marka waxaan eegayaa inuu verified yahay waxaan ku tusayaa verifying-ka halkan waxa ku qoran aniga hadda verify baa igu qoran meeshan saarkiisa waxa ku qoran verifying marka meeshaas haddii verified ku tahay waa okay marka wax dhibaato ama cilada oo ka shakisan tahay ma jiri doonto insha Allah okay haddaba waxa isweydiin lahayn haddaba sida lacagta looga soo dirayo saadkaaga ama EVC ama waxyaalahan haysana ee caadiga mobile banking aynu isticmaalo sida caadiga aanu isticmaalo ayaan rabaa inaan lacagta ka soo dirno ama lacagta kugu jirta waxaad rabtaa inaad si toos ah ugu dirto ama si toos ah ugu dhex iibsato sariflayaasha ay ka mid yihiin Binance Bybitkan ama Gidayo marka Uptran ayaa runtii aad u fududeysay wax cilado intaan isticmaaliyaan ku arkay ma jirto aad iyo aad bay u fiican yihiin wala u kalsoonaan karaa inta aan ka arkay hadda marka haddaba haddii aan muuqaalkeena halkan kasii bilowno marka hore waxa la soo degi doontaa application-ka la yiraahdo Uptran oo ah application-kan ayaad la soo degi doontaa application-ka yar weeye application-kaasi wuxuu ka caawinayaa inaad markaasi aad lacagtaada saadka aad kugu bedelo lacag USDT ah oo aad si toos ah wax uga iibsan karto suuqa cryptocurrency okay application-kan haddii uu hore kugu degsanayn oo akoonada kugu xiriirsanayn application-ku waa kan hadduu hore kugu degsanayn oo ayna akoonada kugu xiriirsanayn hadda ayaan ku tusayaa akoonada kasta ay ku xiriirsan yihiin laakiin waan ku tusayaa marka la soo degto TranApp kaas ku qoran si toos ah Play Store kala soo degaysaa marka la soo degto saar ku dhufanaysaa wuxuu ku sanayo kugu soo kici doonaa laga yaabo inuu ku weydiiyo processing yar oo ah continue soo tusaale inaad geliso akoonkaaga ama numberkaaga waxa aniga already waan geliyay laakiin meeshan markuu ku keeno waxaad iman doontaa meeshan u baalaysa ama ugu xigta bidixda ay ku qoran tahay akoon ayaad iman doontaa kabacdi meeshan akoon ku qoranta marka timaado meesha u sareysa waxa ku qoran akoon ku darso marka inaad fahmi doonto rajin insha Allah meeshaas u sareysa waxaan ku darayaa kolka ugu horeysa oo application ku darayaa tusaale numberkayga EVC-ga ama gurista ama saadka ayaan ku darayaa meeshan u sareysa ayaan furayaa isaga inoo sheegi doona markaasi inta uu ogol yahay in lagu okay marka ku soo dhufato xagga sare aan kugu yar celiyo marka account timaado meeshaas sare ay ku qoran tahay account ayaad ku soo dhufanaysaa account marka ku soo dhufato meeshan ay ku soo bixi doontaa ama meesha aad akoonada kaga dirsanaysaa TranApp halkan sareysa marka ku dhufano kor buu soo kacayaa bacdi wixii tusayaa akoonada aan ku darsan karo ama akoonada meesha aan gashan karo kow EVC waa sareysa walletkaas waa ki Premium Bank u lahaa soo kalto chip baa jirta iyadna waad ku darsan kartaa sahal waad ku darsan kartaa sidaad soo kale waa ku shaqeynaya waad ku darsan akoonkeeda akoonada kale iyaguna aad u baahan tahay inaad ku darsato waxa kamid ah USDT TRC20 kolka waa Tronki ama Tronti haddii aadan xog badan ka hayn muuqaalo badan ayaa ka sameyn doona insha Allah waad fahmi doontaa laakiin kana waa akoon kamid ah akoonada u leeyihiin exchange-radii sida Bybit oo kale way leeyihiin
oo waa meesha lacagta lagu dirayo deposit kaaga ayaa halkan soo gelinaysaa kabacdina si aad u kala ka soo diraysaa kana aad ku diraysaa qabad kale wareejinaysaa waan ku tusayaa Web20 guna waa kii uu lahaa Binance uu leeyahay ama waa network Binance-ga haddaan soo dhaafo USDC isna ku xiga marka waa USDC kana aad ku diri kartaa TRX keliyata oo Tron-tina iyadna waad ku diri kartaa oo sideed macnaha u diri kartaa Tron qalalan ayaa diri kartaa ama wax USDT ahayn laakiin Tron sidiisa ayaa diri kartaa kulka akoonadooda ayaa muhiim ah in beesa hooseysa akoonadooda ayaa muhiim marka inaad ku darsato haddaba si aad u fahanto tusaale waxaan ku siinay marka horeysa waxaad leedahay EVC ka soo qaad lambarkaad haysta waa EVC doonaysan lacagta ka dirto dabeetana doonaysan ku sii dirto kala doonaysan ku sii dirtaana waa waxaad doonaysan lacagta aad u dirto Binance ama Getayo ama Pipit ayaa doonaysan saddexda mid ahaan inaad ku dirto marka lacagtaad waxaad ku haysataa saad ama waxaad ku haysataa check ama waxaad ku haysataa EVC tusaale EVC ga sareeya hadii aan soo dhufto wuxuu oranayaa lambarka halkan geli marka lambarkan ayaad gelinaysaa marka lambarka aad u geliso halkan waxaad ku dhufanaysaa safe lambarku marka uu ku safe gareysmay ana hadda lambar caadi sugan ma gelin oo lambar aan iska taabtay laakiin lambarka saxda halkan markaad geliso haduu saad iyo halkan saad ka soo dhigaysaa haduu wax kale halkaas wax kale ka soo dhigaysaa tusaale halkan bedelo imka oo iraahdo waxaan ka dhigayaa saad baan iraahdo waxaan ka dhigayaa marka 63 ka bilaabmaya halka lambarkii kale ku xigay baad lambarka caadiga baad ka shanaysaa oo kan marka gashatay safe aad oranaysaa marka safe tiraahdo uu ku safe gareynaya akoonkaaga markaad intaas soo dhamayso ee aad halka akoonkaaga soo gashato kolba akoonka aad leedahay wada horeysiinaysaa ay caadiga isticmaasho waxa xiga akoon labaad akoon kale waad gelinaysaa waxaad gelinaysaa arkoonta sareen dib ugu soo noqonana waxaan sameeynaa meeshan aad ka gelisay waad ka noqonaysaa kabacdina waxaad ka dooranaysaa halkan waxaan kula talinayaa waliba kuwa kale inta badan iska qaali USDT ga Tron-ki waa iska yar qaali kuwa kale soo kale iska qaali laakiin kan ay aad ugu fiican oo ay taran aad ugu wanaagsan tahay qiimaha aad u hooseeyo fiigiisu macnaha fiiba laga goosanay laakiin fiigaas aad u hooseeyo marka USDT Web20 aad isticmaalayso marka Web20 gan ayaa ku dhufanaysaa si aad halkan u gashato meeshii lagu diglaa wuxuu ku oranayaa meesha waxaad soo gelaysaa entry wallet address macnaha waa ka Binance-gaaga ama deposit Binance-gaaga ama Pipit-ka ama Getayo ka haysato ee ku Free-ga ayaa tagaysaa waa ku tusayaa si toos ah hadaan ka soo noqono marka halka maraysa waad ka soo noqonaysaa kabacdina Pipit kan ku diri doonaa Pipit baad gelinaysaa anuu ready uu ii gashan yahay inuu iga diida laga yaabaa mar labaad laakiin waan ku tusayaa adiga okay markuu san kugu soo kaco Pipit-kaagu san ugu soo kaco waxaad imanaysaa meeshan hoose ku qoran tahay asset midigta xigta hoose asset markaad ku dhufato wuxuu leeyahay markaas kan laba akoon ka fandhika ayaa ka hoose uu leeyahay trading-ka kolka waxa lagu talagalay labadan waxa ku yar kala duwan yihiin kan trading-ka waxa lagu talagalay markaad suuqa wax ka iibsanayso aad rabto inaad suuqa wax ka iibsato coinanka waxaad iibsanayso kana ay gelinaysaa marka lacag ka dirasana waxaad gelin doontaa ka kale ee fandhinka kaasina lacagta ku soo dhacaysa imika marka kuwan iyagu wax muhiim maaha marka suuqa aad ka trade garanaysa qaabka lagu trade garanayo uma muhiim tahay laakiin hadda saa loogu soo shubanayo ayayna ka warramanaa saa loogu soo shubanayo kaliya taan raba inaan kuu sheego deposit waad ku dhufanaysaa meesha ay ku qoran tahay deposit marka deposit saa ugu dhufato waxaa ku soo bixi doona meesha ku qoran tahay deposit crypto kabacdina crypto saa ku dhufan doontaa okay marka waxaad soo dooranaysaa USDT ani xaga soo soo ku qoran hadda USDT baan ku qoran marka haddii una adiga USDT xaga sare ku soo marsan way search gareynaysaa ani inta badan waad search gareysay wiilka USDT haddii una meelaha ku qoran inta ugu badan waliba waa search ku soo bilaabmaya hadii aad cusub tahay laakiin hadii aad orjer search gareysay meelahaas ku soo galay marka xaga sare aad gelinaysaa meesha sare aad gelinaysaa USDT ayaad gelinaysaa si aad halka uga soo doorato USDT waan ku qorayaa USDT soo qormaysa marka waa ka sare ka sareeya ayuu noqonayaa kadibna kaas ku dhulfanaysaa marka kaas ugu dhufato wuxuu ku saari doonaa network-ka sidoo kale network-ka ku weydiinaya marka waxaan u noqdiyo network-yo fara badan oo kuwa aynu TRC20 weyn ku soo arkaynay meesha Web20 gana weyn hadda arkaynay kolka keenay doonayna waa Web20 ga ma ka Binance iska leeyahay ee la yiraahdo Binance Smart Chain la yiraahdo kaas ayaynu qaadanana marka kaas ayaa dooranaysaa oo aad akoonka ku xiraysaa marka soo doorato xagga kale imka hadda taagnayn Web20 ka soo dooran hadii aad TRX soo dooratay TRX kaas aad qaadi doontaa kuwi kale way ku jiraan waxa oo sii xubay jiraan laakiin ka sareeya hadda ayaynu inagu u soconaa kaas ayaan qaadaya waxa ku dhana waliba kaas kaliya tasgidayso waayo kaas kaliya taaba ka badanba oo xagga fiigiisuna aad u jaban yahay waxaan ku arki doonaa xagga taran okay isaga ku dhulfanay markaasi marka isaga soo dhulfato halkan waxa ku soo bixi doona bob yar buu ku soo saari doonaa bob kan waxa weeyaan wuxuu ku sheegayaa in aad isticmaalin wax kale in aan soo dirin ama coin kale in aan soo dirin
marka hubsabu ku leeyahay in aad isticmaalayso bab 20 inuu yahay lacagta aad soo dul marinaysaa chainka ama meesha aad soo marinaysaa lacagta USDT ga soo diraysaa inuu yahay bab 20 ga iska hubso waxa meesha ku qoran coinka soo diraysaa waa USDT chainka ama wadada la soo marinayaan waxa weeyaan bab 20 ga marka bab 20 gaas ayaad soo diraysaa buu kulisaa iskaga hubso marka waa iska hubsiimo uu ku soo diraya marka tan ayaad soo jiidaysaa sabab cadasata okay waan ogolahay waan hubaa macnaha marka tan soo jiidaya marka soo jiido waxay soo baxaya addresskayga ana halkan waxa ka muuqda addresskayga adigana addresskaaga halkan ka soo muuqan doona marka waxa oranaysaa copy marka saa la soco waa deposit address waxa xagga sare u sareysa deposit ka kugu qornaada marka deposit address marka aad baa la iskaga hubiyaa hadii kala siiro fudud bil lacagta ku luntaa hadii wax khalado marka copy baad ku dhufanaysaa hadda marka copy ku soo dhufto waxa ku soo noqonaya markaas taran up okay abtaran baa marka aad ku soo noqonaysaa hadda waxa ku soo noqday abtaran okay markaas ugu soo laabato maadaama aan hore isticmaalay wuxuu leeyahay waa akoonada kugu jiraan laakiin arkay akoon bidixdu xigtay baad ku soo noqonaysaa adhi saraad ku daraysaa marka sidadka ku darsatay halkaas ka soo muuqan doona kuwii kale ku dartana halkan ka soo muuqan kulba ka ku dartay halkaas ka soo muuqan marka macnaheedu waxa weyn sidaad baad ka soo diraysaa kanad ku daraysaa kanad ka soo marka soo diraysidna iyaga address ku diri doontaa laakiin ka sida loogu soo diray lafteeda waan ku tusi doonaa laakiin marka ku dirayso kanad ka soo wareejinaysaa ama EVC ama waxaad haysto kanad ku soo diraysaa ama kan kulba kii aad isticmaalayso okay hadda xaga sare ayaan ku dhufanayaa ara konta si aad ku tuso si aad ugu darsato meesha falaadhida hoos u jeedo ayaan ku dhufan doontaa kabacdina markaas kugu soo baxaan wuxuu ahaa bab 20 aad iskaga hubi TRC 20 ayaa jira kulka ku kala jira oo USDC la yiraahdo bab 20 iska ilaal marka USDT bab 20 ma soo dooranay oo hadii dib u eegnay hadda waxay noo doorsan wakaasa oo USDT bab 20 waa USDC maaha USDC ma soo gashan kartaa okay waxaan sameeynaa marka USDT bab 20 ga saan dooranaya dhexe maadaama ku ahaa kabacdina addresskayga halkan aan gelinayaa inta halkaas uu xajiyo ayaabaan addresskayga soo gelinayaa marka addresska meesha soo geliyo addresskayga ka muuqan doona addresskayga deposit addresska way halkaas aan geliye magac baan u bixisanayaa marka dhowr akoon aad gelinayso oo kala duwan sida bab 20 ga USDC iyo mara USDC 20 ga aad isticmaalaysid kan waxaan ku qorayaa tusaale waxaan oranayaa haduu Binance yahay imika gedayo waxa weeye ma jeedo Bybit waxaan oranayaa tusaale Bybit oo sigaar qoran muhiim ma aha waad ka tagi kartaa laakiin waa sidaad ugu xasuusto ugu kala saarto oo inaad iska ka khaldamin waxa oranaysaa Bybit deposit address baan oranayna markaas deposit address waxa addresska deposit ka markaas safe ku dhufanayaa adiga yaal igama yeerayaan laakiin filaya maadaama aan mar hore gashaday bab 20 gani okay safe baan ku dhuftay wuxuu igu yiri miyaad tan lagu save gareeyo yes baan oranayaa okay waxaan eegana markaasi inuu naga yeelay marka anigu iga diiday waayo already uu igu jiraa wuxuu igu leeyahay mar hore ayaa gashatay oo waa kan hoosaanaya bab 20 waa kaas USDT waa KTRX-ka kaas inuu igu jiraa laakiin kan weyn ka isticmaal hadda waxaan ku tusaysaa lacagta looga soo dirayo marka inta dhamayso kaliya taada lacagtii waad ka diraysaa ugu horreyn waxaad imanaysaa lacagta uga dirto horta meeshan KYC-gana hadda waxoogaa yar ku fahansiiyo waxaad samaynaysaa KYC-gaas waxay ku fududaynaysaa lacagta inta aad diri karto iyo inta aad la bixi karto marka uu sareysa kaasi soo automatically buu verified kugu noqonaya marka sida uu soo gasho ee numberada gashato automatically buu kugu soo noqonaya mid ku saxan marka wuxuu ku leeyahay meesha daily waxaad daily ka diri kartaa $100 oo meesha ku qoran waxaana la soo bixi kartaa bishiina limit bishii wuxuu noqonayaa marka daily $100 bishii 3,000 buu noqonayaa oo bishii 3,000 baad la bixi kartaa ama aad ku wareejin kartaa okay haddii saan ku noqono KYC-ga oo aan niraahno kasoo noqon ka hooseeya kan isna ID-ga ayaa verify garanaysaa ama baasaboorkaaga aad ID haystaan waa caadi hadda baasaboor haystaan waa caadi marka waad gelinaysaa halkaan baasaboorka geliyay waa caadi ugu aniga waa aqbalay marka meesha aan baasaboorka geliyay oo tigta saareen hadda waa correctable waa saxan yahay maalinka waxaan diri karaa lacag ku dhow $1,000 lacag aan diri karaa bishiina 30,000 marka kan kale saddexaad ku sii xiga hadaad eegto anu ka sarooto inaad iska verify garsto waan kugu la talinaa aad iska fudud yahay kan xiga waa Face ID oo Face ID ayaa sameeyay wiilaan Face ID ma sameeyay laakiin maalinta 5,000 marka diri karo marka salo qiimaha lacagta diri kartaa kor u sii socoto ama ayna lacag soo diri kartaa ay badan tahay waxaad sameynaysaa meelahan ayaad verify garanaysaa okay hadaba sida loo diriyo eegna hadda marka soo gasho ka u sareeya verify ku ahaan doona kabacdina lacag yar oo fudud $100 sida dirileed waqti soo meeshan swipe ku qorata markaas markaad koonada ku soo xidho kabacdina halkan uu ku keeni doono marka halkan ku keeno
haddii aad rabto inaad ka soo dirto sad waxaad samaynaysaa sida ka ugu sarreeyaan kayga oo kaleeto halkaas lacagta gelinaysaa haddii uu EVC yahay halkan waad ka dooranaysaa sadka ku dooranaysaa ka doonaysaa lacagta ka dirto ayaa halka gelinaysaa sahal hadduu yahay sahalka ka gelinaysaa hadda uu yahay EVC halka gelinaysaa okay hadda aniga sad baan isticmaalayaa marka sadka halka gelinayaa sadka marka halka geliyo meesha lagu dirayo iyaduna aad muhiim ah oo halkan hoose ah iyaduna taabanaysaa kabacdina wuxuu dooro meesha loo diray meesad baad ka soo diraysaa ayo walad baad ku diraysaa kuna isku diri kartaa jeeb baad ku diri kartaa sahal baad ku diri kartaa inkastoo inta tijaabin laakiin sida meesha ka muuqata waxaas dhan waad ku diri kartaa TRC gana waad ku diri kartaa buu leeyahay okay hadaba kay inagu doonana wuxuu ahaa BEP20 oo ka dhaxay weeyaan USDC mu ahayn TRX kana mu ahayn calaamadaha sawirka ku yar garanaysaa kay inagu ku soo dhiganay depositkiisa meesha noo yaala waa kana marka USDT BEP20 baan dooranaya USDT BEP20 okay lacagta hadaba halkaas sare gelinaya meeshaas aan lacagta gelinaya waxaan gelinayaa tusaale hadda waxaan gelinaya lacagta ugu yar ee la gelin karaa horta waa $5 update ku soo marka hore $10 baa ugu yar laakiin hadda $5 baa ugu yar wuxuu kule minimum ka lacagta la gelin karaa waa $5 ayaa ugu yar ka diri karto lacagta ugu badan aad diri kartaana waa $5,000 iyo $5 bana ugu yar marka $1 hadda dir istiraado ka yeelmaya laakiin $10 bay hadda diranaa oo aynu eegna ku tijaabinayna okay markaan $10 ku dhaafdo dir wuxuu igu leeyahay BEP20 ama Bybit-kaagi waxay gaari doontaa $9.80 tamacneedu waxay ka turjumantahay xaqan hoose waxa jira fee ama fee yar ka goosanayaan oo inta ay ku shaqeynayaan aad baan u yar yahay waa fee aad iyo aad u yar 20 senti ayaa naga go'aya $10 20 senti ayaa naga go'aya tusaale haddii halkaas $100 ka dhigo maxaa ka go'ay doona $100 $100 waxa ka go'ay $1 iyo 95 senti waxa ku tagi doona 98.05 kulka aad buu isaga jaban yahay kulka hadda $10 baan ku eegayaa wuxuu oranayaa markaas $10 waxa fee noqon doona 20 senti haddaan u baahanahay 20 senti halkan ayaan ka raacin karaa 0.20 baan oranayaa si una 20 senti iga go'inba okay markaan halka 20 senti aan ka soo dhigo fee wuxuu noqonaa 20 senti soo goosan doona net amount lacagta ay tagi doonta waxay noqonaysaa $10 oo saxdiya $10 oo caadi ah okay hadda waxa sameeyay marka barta marisid waxa iska hubsanaysaa meeshan inuu yahay meesha lagu diray inuu saxan yahay meesha laga soo diray waad garanaysaa laakiin meesha lagu diray waad iska hubinaysaa inuu addresskaaga yahay okay kulka hadii BEP20 kaliya taa gashatay meel kala mari maayo wuxuu tagi doonaa BEP20gaagi kulka waxaan ku dhufay swipe hadda kulka 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo ay qaadataa mustili laakiin lacagta waxaad ugu diri doontaa si toos ah marka halkan pop up ayuu ku soo saaraya lambarkooda caadiga ayaa ku soo bixi doona kabacdina kaas si toos ugu diraysaa kadibna iyaga ayaa si directly ugu shubaya meeshaad baahneed okay meesha waxa iga tusayaa meeshan ku diri lahaa wuxuu lambarkaas aad ku diraysaa oo codsanaysaa $10 kaas ku diri doontaa $10 iyo 20 senti marka dirayso waxa la oranaysaa 10 xidig wada dhaxaysanaysaa tuuba ka sii dambeyn doona okay haddaba haddii uu ku socdo mar hore process oo aad dirtay oo ama internet ku ka go'ay ama cilad kale ku timid waxa oranaysaa process cusub ma wado kii hore ayaan sii wadayaa oo lacagtii hore ayaan lacagta u diray laakiin cilad ayaa yar jirta ama hadii ku soo celi ku dhaadan xagga WhatsApp-ka laga hadlaa waxaad ku dhufan doontaa mid hore oo sii jiray ayaan ku sii soconay laakiin hadda inagu ku hore oo sii jiray ma jirin macnaha aynu ku hore wadnay oo internetkii wax naga tagay oo ciladii xas nagu yimid ma jirto laakiin wuu cusub yahay marka waxaad oranaysaa new request hadda ayaan lacagta diray ugu horeysa okay new request marka ku dhufato wuxuu ku saari doonaa xagga mobilkaaga xagga caadiga ahayd ee wax laga diray ayuu ku soo saari doonaa xataa isaga ayaa ku qoraya marka lambarkooda soo geli doona halka lacagta direysay 20 sentina saas u qormaa okay 10.2 gaasna u diranaa kabacdina si caadigeed ayaad u gelinaysaa passwordkaaga caadiga ah ayaad kaga diraysaa lambarkaaga wana meesha ugu fudud ama halka ugu fudud ee maanta lacag ka diri karto ee cryptocurrency ama suuqa cryptocurrency aad lacag u diri karto kabacdina halka aad kaga trade gareyn karto okay waxa soo baxaya magacoogii kabacdina waxaan oranayaa okay waxaan gelinayaa passwordkii kabacdina waxaan oranayaa u dir xagga laftiisa fee yar baa kaasi go'ay ilaa 10 sentiya laakiin waa iska caadi waxa ka go'ay lacag $10 iyo 0.30 sentiya ayuu guri hadda okay lacagtii waan u diray marka wax kale aniga ma sugayo meesha hadan ku noqono hadda abtaranka aan ku soo noqono abtaranka marka saa ugu soo noqoto waxaad arki doontaa processing-kii oo socda processing haddii san uu ka noqdo oo aad haddii uu sidan dib kaaga noqdo wax dhibaato ama laha waa caadi kama warwareysid waxaad samaynaysaa waxaad ku dhufanaysaa meeshaan ku qorantay transaction meeshaasaad ku dhufanaysaa transaction ku qorantay hadduu kaasi dhaqaaqo kabacdina transactionadii meelahan kuwii lagu guuleystay iyo kuwii lagu guuldareystay ayuu ku tusi doonaa
macnaha kuwii kuu baxay kuwaan ku bixin hadda wuxuu noo sheegay inuu confirm ku jiro kaas sare oo uu socdo calaamada yellow waxay tilmaamaysaa inuu socdo oo ku dul dhufanaysaa kabacdina c baad ku dhufanaysaa i tus oranaysaa sida shaqadu socoto okay halkan wuxuu ku tusayaa markaasi inta daqiiqo ee uu ku leeyahay isug aan ku diro lacagtaasi ilaa 2 daqiiqo weeyaan lacagta halkan waxa socota processing-kii marka lacagtii ayaa lagu dirayaa si caadi ah iska baxaysaa waxa laga yaabaa iyadoo xaggaas processing-ku 1 daqiiqo ka harsan yahay ama 2 daqiiqo ka harsan yahay minutyada in 2 second ama 1 second wax ka harsan yihiin inay ku tagtaa laga yaabaa Bybit marka hadda Bybit kan sii taganaa saan u hubsano marka WhatsApp inta badan fariinta ku soo dhacda hadda xaggaas sare WhatsApp markii fariin ku soo diray wuxuu soo qoray fariinta xaggaas sare ka soo diray inagana WhatsApp kaaga markaas si tag busara soo saabina haystaan filaya wali business ku fiican yahay haddii kale to kaleena kugu soo dhacsan rajaynaya waxaan tagayaa kayga businesska okay markaan imaado ka u sareeya wuxuu leeyahay fariin buu soo diray wuxuu igu yiri lacagtaadi waa lagu diray ay yiraahdeen qoladaasi marka si automatically ayuu xagan kugu soo dhacaya fariintu kugu soo dhacaysa okay lacagta waa lagu diray buu yiri marka mar labaad ha ku celinin ayaa transaction ka xaq oo ka qoran okay waxaan tagay Bybit marka waxaan eegay lacagtii inay soo gaadhay 2 daqiiqo 1 daqiiqo wala iska sugaa xataa soo message ka WhatsApp ku soo dhacay wax dhibaato ma laha 2 ilaa 3 daqiiqo iska sugto waa okay marka lacagta waxaad ka eegi doontaa meeshan asset ka imanaysa ka bacdina waxaad eegaysaa in la hataa waxaan arkay message soo galaya in lacagtaas soo gashay ma filaya marka waxa ku soo dhacda labada akoon ka sare ku soo dhacay funding-ka hadaad isticmaalso Bybit hadii kalena si toos ah waxaad ku arki doontaa kuwa kale marka sida asset u tagto ama wallet u tagto sida geedayo kale waxaad arkaysaa lacagtaadii meesha ku okay lacagta hadda waa tana 19 ka meeshaas marasa marka hore waxa ku jiray 9.8 9.8 ba ku jiray hadda waxa wuxuu noqotay 19.8 bay noqotay okay si aan ku tuso ila transaction ka ku tuso waxay noqonaysaa waa kana marka kiimka soo dirnay oo kaasa saacadan hadda isticmaalno arkaysaa waa 3 iyo 14 daqiiqo ayaa lagu soo diray 16 daqiiqo hadda maraysa bisha iyo date-kuna waa same $10 hadda ayaa la diray marka hore 9.8 kaasaan ku eegay mar dhaweyto 9.8 kaasina uu ii soo galay waxa ka hor bay dhowr saac ka hor okay markaasi saasay lacagtaada kugu imanaysaa Bybit saasana ku iibsan karaysaa cryptocurrency haddaad baahantahay Solana haddaad baahantahay XRP haddaad baahantahay Cardano waxa doonto halkan ayaad ka iibsanaysaa marka Bybit waxa jira akoonkiisa funding akoonka joogna wala kala wareejin marka mostly la trade garaynayo isagana muuqaal kale ayaa ka sameyn doona haddii aadan hore uga trade garan jirin comment-ga ugu soo qori doontaa qaabka looga trade garanayo ama qaabka lacag loo iibsanayo coins kabacdina aad iskaga sii iibinayso ama saa looga trade daily trade aad u noqdo iyo investment uu noqdaba labadaba waan ku sharaxi doonaa comment-ga ku soo qori doontaan haddii aydan muuqaalka waxba ka fahmin sida Aptran loo shaqeynayo soo kale taysna comment-ga ku soo qori doontaan muuqaalaga gaaban ayaan insha Allah idinka soo sameynaya laakiin lacagta saas ay kugu soo gaaraysaa marka sidaas si toos ah ugu iibsan karaysa waxa doonaysid adigu qaybta trade-kaga iibsan doona insha Allah ta'ala muuqaalkaas waxaan rajaynayaa inuu idin anfici doono insha Allah ta'ala soo kale muuqaalka like saara haddii uu muuqaalku xun faa'iido kugu jiray assalamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh